Nataka kuambia ya kwamba hii county ni yetu. Hii ni serikali yetu na tunaweza kufanya chochote ambacho sisi tunataka kufanya. We don't need anybody's approval. There are many people working there and they bought their degrees from River Road. Yeah. And the guys who went to college, universities have no jobs. That is a serious fraud. Watu wengi hawafahamu hii devolution, wanafikiri sisi ni department ya serikali ambaye inasimamiwa huko Nairobi. Hii serikali tunaweza kutoa mtu ambaye anachuma ng'ombe Abalatiro, tuje tukalete hapa aweze kusimamia kazi yetu ile sisi ambaye tunaona ya kwamba tunahitaji. Kazi yenu mtakaa naye na hakuna mtu ambaye ataweza kutoa kwa hiyo kazi. يا قايلدي انت بدك جرتي magaalada Nairobi Governor Ali Buno qorane marka kuwaad ku soo dhawow waana kaaga magaceleynaa wareysigan gaarkeena siinayso dadku waxa uga warantaa maxay ahayd arrintii dhacday xariga keentay dacwada keentay dad fara badan ay fasiraada kala duwan ay ka bixinayaan maxaa horta aad baad mahadsantiin inaad i wareysatiin oo dadweyne aan ogeysiino wixii dhacay wixii jiro runtii warun waa li dacwey lamaanta wax cad oo waxan baa ligu dacwey aan ku dhihi karo ma jirto dacwada ligu furayna waxaa weeyo mid hadda wax baad xaday lima dhihin wax faa'iido baa ku soo gaartay oo adigu soo gashay oo wax la soo dhacay lima dhihin waxa la yiri dad adiga ku shaqeeyo ya khalad sameeyeen khaladkay sameeyeen waxay ahayd lacag accountan ku jirtay oo account dawlad ay ka bixiyeen oo account kale dawlad ay leedahay geliyeen taana hadii ma furi karto dacwo oo maartay yani inta leek ma furi karto midda labaadna waxa la yiri mashruuciyo loogu talagalay in la meel mariyo iyaan la meel marinin taana waa been oo mashruuciyihii lacagtan loogu ama qaabka dawladda Garissa County iyo dawladda dhexe wada shaqeynaysa shacabka iyo dawladda qaabka wada shaqeynayaan filankii ama waxyaalihii laga filay dawladda Garissa County iyo waliba haatan meesha ay marayso dhammaan waxay noqon doonaan su'aalaha aad ka bogan doontaan wareysiga iyaga Governor ku soo dhawo marka koowaad idaacadda Kulmiye FM iyo TV Kulmiye وأصلها إن برا بدن وبالشدة يولي بقى إذا عدد فرا بدن قادن دونا ورئيس كنا سجى قادن دونا مركو كوات سودو بسم الله الرحمن الرحيم وما تنتهي شراء سيدا قيمة لا يوصل ويسي إذا عدن كلمية هم علينا سيدان سدح سنة يوح لجرو كهور عن دولة ودسني ومركي يجوا هريسي عن إذاعة فريستو on maaragtay aan marka fursada ay tahay waadna mahadsantahay inay kulmi ay noqoto meesha ugu hore aan maaragtay aan fariisto on ka hadlo Governor maxaad ku qiyaasi kartaa xaaladda Garissa County haatan ay marayso hadii aad noo dulmeerto wallahi Garissa County horta waa county sii jirtay oo magaalo Garissa qadiim way waa la garanay waa magaalo joogtay waxay ahayd magaalo madaxda gobolka Northeastern in muddo aan ka saynaa markii devolution imaaday hadda waa dawladii labaad oo anaga aan soo dhisnay run ahaantii dawladdan markaan dhisaynay si isbedel inaan keenno ayaan ku imaanay anagoo markaa dhaliilayno dawladda markaas ayada jirtay wax qabadkeeda iyo maaragtay bulshada sukeenkeeda iyo anagoo dhaliilayno laakiin run ahaantii waxay u egtahay in anag naftayna nidaamkii iyo programmadii iyo wixii aan ku fikiraynay aanan maaragtay sidii loo rabay ay u fulin oo maaragtay situationka hadda wax weyn oo isbedelay unuusan jirin doodayada waxay inta badan ku salaysnayn doontaa
furitaankaaga hadda xaaladda guud maxaad is leedahay waxyaalihii aad adiga gabana cali bunow qorane iyo maamulkiinii dhaliinayay maamulkii ku horreeyey ee mudane nadiif jaamac aadan baad ku guulaysanaysaan oo haatan aad aragtaa in ay dhaan dabangaalo noqoto muddo ugu hore devolution waxaa loogu talagalay inay maaragtay gaarto degmo kasta degmada kasii hoose for example haddaan maaragtay soo qaato tusaalo maanta waxay ahayd devolution in laga dareemo agagaarka ama meelaha ka fog magaalada Gaarisa maaragtay sida Holuuqo sida Liboy sida Daanyere sida Banaani sida Amuma Wilmarir Abalatiro ay ahayd devolution in laga dareemo oo lacagooyinka iyo dadka illa kabtaasna ay gaarto laakiin si ahaantii markaan si guud kuugu sheego devolution lagama dareemayo goobaha sadda aan ku sheegay oo shacabka ay degan yihiin xuduudaha Garissa County hata taas laga soo baxo magaalo ahaantan hadda la imaado waxaan maleynaa in badan bariyahan waxaan kaga hadlay foorumyaha kale oo iskugu imaanay xaaladda isbitaalka uu ku sugan yahay run ahaantii isbitaalkan waa maxaa la dhahaa referral hospital oo referral region oo dhan u yahay laakiin maanta haddaad tagtid way joogaan shaqaale oo maaragtay khibrad leh laakiin support oo ay ku shaqeeyaan ma hayno waata u soo noqonaynaa wasaaradaha iyo wasaaradda waxqabadkeeda markii adig iyo gabana cali bunow isku imaanayseen waxaad ka fikirayseen in isbedel la sameeyo oo wanaag iyo horumar dadka reer Gaarisa la gaarsiiyo xukuumaddii markaa jirtay aslaheedeen ma suurtagelin inay hagaajiyaan bislihi lahayd salaanka waxaad kaga soo fuusheen salaanka waxaan ka wada jaraanjarada idinkoona iswaraysanin waxa idinka horreeyeen ogeyn khibraddii iyo shaqadiina aanan aqoon u lahayn inaad salaanka iska soo fuusheen markaad meesha u koromaraysaan aragteen in xaaladdu aysan socon karin maya saas ma dhihi kari dad khibrad leh waan ahayn markaad fiirisid gabanaga nin soo shaqeeyay oo dowladda Kenya soo shaqeeyay oo aniga sida hadda sheegtay waan soo shaqeeyay private sector aan ka shaqeeyay bangigan ka soo shaqeeyay macallin waan soo ahaa in bulshada ku dhex jiraan oo bulshada waxay u baahanto og marka manifesto online oo dadka inaan wax u qabanayno soo fahmi laakiin waxay u egtahay markaan soo galnay taladii dawladdi inay noqonin tu laga tashanayo oo ay noqoto tu un hal nin intuu fariisto asaga le go'aamo iska gaarayo oo maaragtay tala dawlad oo fidsan oo departmentyalkeeda iyo shaqaalaheeda iyo dadkeeda oo dhan ama bulshadeeda lagala tashanayo inaysan noqonin markii aad wada socoteen cali aad dawladda soo dhisayseen wax badan baad tashanayseen oo tashigaad ku hesheen inaad wax noqotaan maxaa diiday markii aad salaankii kasoo degteen oo xafiiskii tagteen oo hawshu idin macaanaatay inaad tashi samaysaan dadweynaha la tashataan sida ogsoontii bas talabaan ku imaanay wadankan sharciga u yaalo badi awoodda muxuu siiyaa xafiiska barasaabka gabanaha laakiin waxaan aan yeelanay xeer hoosaad kale oo Soomaalida dhaqan ay u leedahay oo maaragtay inaad isla shaqeynaysiin oo la tashanayo wax la isku ogaado laakiin waxay u egtahay marka xafiiska soo galnay barasaabka ama gabanaha in xeer hoosaadkii iyo waxyaalihii lagu heshiiyay inuu dhinac iska dhigay oo asaga uu damceeyo inuu sharciga keligii sidii awoodda ugu koobnaan lahayd uu la tiigsado shaqada run ahaantii tiina ma shaqaynin dawlad way waxaan dawladna keligii u talini shacabka lama tashanay ma soconayso marka aan ku soo qaado tusaale mar waxa jirtaan aan